luubaan luubaanta la shito oo guryaha lagu carfsado maxaa u dhaha luqadda ingiliishiga waa haddii aad ku fiican tahay luqadda ingiliishiga cashirkan waxaa iskale dadka waaweyn luubaan haddaa dhahday frankincense jawaabtaada way saxan tahay luubaan ingiliishiga waxaa loo yaqaanaa waa frankincense luubaan waxaa loo yaqaanaa frankincense ereyga labaad cuud maxaa u dhaha luqadda ingiliishiga cuudka isku carfiyo guryaha lagu shito haddaa dhahday incense stick jawaabtaada way saxan tahay cuudku guryaha lagu carfsado luqadda ingiliishiga waxaa loo yaqaanaa incense stick waxaa loo yaqaanaa incense stick cuudka guryaha lagu carfsado waxaa loo yaqaanaa incense stick ereyga saddexaad malmal maxaa loo yaqaanaa luqadda ingiliishiga malmal caruurta loo mariyo okay meer haddaa dhahday jawaabtaada way saxan tahay malmalku luqadda ingiliishiga waxaa loo yaqaanaa meer ayaa loo yaqaanaa ereyga afraad xulbo maxaa loo yaqaanaa luqadda ingiliishiga xulbada la isticmaalo soonkii xulbo haddaa dhahday vinegreek jawaabtaada way saxan tahay vinegreek haddaa dhahday xulbadu jawaabtaada way saxan tahay xulbada luqadda ingiliishiga vinegreek ayaa loo yaqaanaa raqayda lagu darsado basbaaska maxaa loo yaqaanaa raqay tamrin haddaa dhahday jawaabtaada way saxan tahay tamrin haddaa dhahday raqaydu jawaabtaada way saxan tahay luqadda ingiliishiga ereyga lixaad sanjabiil oo lagu darsado sanjabiilka lagu darsado kafeyga ama qaxwada ginger haddaa dhahday jawaabtaada way saxan tahay sanjabiilku luqadda ingiliishiga waxaa loo yaqaanaa ginger ereyga toddobaad cajiinka aan ka samaysan canjeerada pastry haddaa dhahday jawaabtaada way saxan tahay pastry haddaa dhahday cajiinku jawaabtaada way saxan tahay ereyga sideedaad qorfe ama qarfo oo aan ku darsanno waxyaabaha cabitaanka aan ku darsanno shaaha cinnamon haddaa dhahday jawaabtaada way saxan tahay cinnamon haddaa dhahday qarfaha jawaabtaada way saxan tahay ereyga sagaalaad heel hawlaha luqadda ingiliishiga cardamom haddaa dhahday jawaabtaada way saxan tahay cardamom haddaa dhahday jawaabtaadu way saxan tahay erey ugu dambeeyo waa dhago yare dhago yaraha la isticmaalo maxaa lagu dhahaa luqadda ingiliishiga comment ku soo qor